سارنا سيدي سيفتي عدو سراسي على الكسور ويستسمى البطول halsaniyaa ku wareegtay tan iyo markii mudaniyaalka baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed sanadkii una dhaafnay lamada 19 December iyo dooradeen madaxweynaha lamaad dawlad goboleedka koonfur galbeed intii sanadada mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen durba doorashada kureed madaxweynaha mayso bilaaway dadaalo ka salaysan baahinta adeegyada dawladda hanashada amniga kobcinta dhaqaale isdhexgalka bulshada iyo reedin heliisinta bulshada muhiimadii aan leeta dadaaladaas oo guulo faylal ku deeray munaasabad seher sare lahan agaasimi isla markaasna lanka dabaaldegay sanad guurida koowaad madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed oo la ka gobadi aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo yaabeen ku qayb galay madaxdanka sareyta dalka oo ka horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku xigeenjay koowaad madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed wasiir xildhibaan ku tirsan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo koonfur galbeed taliyaalka shal duwan laamo amniga fanaaniinta qaranka oo ka tawalada fanaaniinta koonfur galbeed ee Jinaawka iyo qaybo bulshada magaalada Baydhabo ku qaybgalayaalkii amaani wal qabadka muuqdo muddada suurooyo soo gobadi madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyadoo meelaas iyo ka bandhigeen fanaaniinta onkod iyo Jinaawka heesla ka amaanay wal qabadka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen dabaaldega sanad guurida koowaad madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo socotay ku qaybgalayaalka munaasabada ku hadalay bayo amaanina goolowsa hooyi madaxweynaha muddada suroogi sida amniga dhaqaale horumarinta bulshada iyo mideynta siyaasiyiinta ku jeedo koonfur galbeed mayniyo ka dhiirigeliyeen si lama jabaara dadaalku san ka jar horumarinta shacabka reer koonfur galbeed gareen oo aan halkan ugu dabaaldegnay madaxweynaha dawladda federaalka oo goobjoog ka ahaa iyo dhammaan mas'uuliyiinta maanta meesha fadhiyo taas waxay ka dhigan tahay halkan sano gudaheeda waxaan goobjoog u ahayn isbedelada iyo waxa ku soo ziyaaday dawlad goboleedka koonfur galbeed anaga odayaasha dhaqanka waxaan waardiye ka nahay gaad ka nahay markastana aan la soconaa sida ay u socdaan howlaha ee dawlad goboleedka iyo dhaqdhaqaaqa oo dawladda samayso madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen yan kuma hadii dhamaan ku qaybgalayaalka munaasabada lanka dabaaldegay sanad guuradiis maynu ku hadalay muddada xilka ay walyaabo qabsoomay waxaan rabaa inaan soo koobo ayadoo gagaaban arrimaha amniga ugu horeeyo amniga runtii tilaabo fiican oo horumar leh ayaan ka qaadnay oo ah inaan suurtagelino diyaarino ciidamo u diyaarsan oo tayeysan u tababarno reformna ku suubino si ay u furaan jidadka ugana howlgalaan deegaanada ay joogaan nabadna uga aslaaxiyaan tii ayadahayd ilaahay waa nagu guuleeyey ciidanka 70% waa la qarameeyey gobolka Boqol waa soo dhameeyay waa la qarameeyay gobolka Baay baa hadda loo bilaabanay ciidamadiisa la qarameeyo ugu horeyn aan ka bilowno diiso rabbi ilaahay yiraahdo iyo qasax dheeri iyo buurha kabiir bardaal inta baan qarameeyay sidaas oo kale gobolka Shabeellada Hoose ciidamada joogo waxaa weeye laba cutub mid 400 hadda tababar ku xirayna mid kale 400 aan hadda inta tababar looga furayaa oo loogu talagalay isu furka jidadka iyo isu socodka bulshada inay suurtageliyaan haddii ilaahay yiraahdo qorshaheeda meel fiican noo maraya amniga koonfur galbeed wuxuu halbowle u yahay oo muhiim u ah sidii hore loo sheegay
inuu furmo jidka isku xiro xamar iyo baydhabo, inuu furmo jidka isku xiro xamar iyo baraawo, inuu furmo jidadka isku xiro gobollada kale ee bakool. intaasuu halbowlihiisa uu yahay. waxaan hiigsanaynana ay tahay insha allahu waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay hamiga annaga iyo sida aan aaminsannahay ay suurtagasho. cadaaladda muhiimadda aan labaaday noo ahayd waxaan ka suurtagelinay. waxaan samaynay hay-adihii garsoorka, waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare, waxaan magacownay guddiga adeega garsoorka, waxaan soo dejinnay dhallinyaro aqoon-yahanaha oo adeegayaalka garsoorka ah. waxaan noo suurta gashay inay maxkamadihii oo dhan buuxiyaan, aanan u helno agab iyo xafiisyo iyo mishaar ay ku qanci karaan oy ku shaqeeyaan, dadka reer koonfur galbeedna ay kalsooni buuxda ku haynaan. arrimaha bulshada waxaa nooga suurtagalay oon hore u ballan qaadnay inay helaan dadka reer koonfur galbeed waxbarasho lacag la-aana sidii hore loo sheegay. ilaa ay hadeertaan waxaa noo suurtagalay ilaa iyo 6 iskool inaan furno oon dib u habeyn ku samayno oo ardayda reer koonfur galbeed meel kastay joogaan ay maanta aadi karaan kana dhigan karaan waxbarasho tii ay xaq u lahayd. haddana waxaan dhagax dhignay oo socdo 3 macad oo aan ugu talagalnay baay iyo bakool iyo shabeellada hoose. macadyadaas oo ah macadka waxbarashada beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. 3daas macad ayagana qorshahooda meel fiican u maraya, dhismaa ku socda. haddii ilaahay yidhaahana waxaan rajaynaynaa in la dhammaystiro. markii ugu dambaysay prime ministerka intuu imaanayay magaalada baydhabo waxaan ka dhagax dhignay 3 iskool oo hadda dhismahooda socdaan, oo aan ugu talagalnay inay iskoolladii loogu talagalay lacag la-aanta lagu dhiganayay ah, oo ay dowladda leedahay gacantana ku hayso, macallimiin wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ay leedahayna ay gacanta ku qabanayaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. arrimaha caafimaadka sidaasoo kale waxaan diyaarinay isbitaallo, degmooyin tiro badan aan ka diyaarinay. intii degmo oon tagayo waxaan ka dhagax dhignay isbitaallada ay ahayd mid dhammaaday iyo mid dhismo ku socdo waaye. waxaana rajaynaynaa insha allahu ayagana inay sida ugu quruxda badan ku soo gabagaboobaan. arrimaha siyaasadda koonfur galbeed mabda'a siyaasadeed oo ku shaqaynayna waxaa weeye xasilooni siyaasadeed, in siyaasadda la gaarsiiyo dadka, dhallinyarada, la isku xiro bulshada, midnimada iyo horu socodka koonfur galbeed, in laga shaqeeyo degmooyinka iyo meel kasta si loo gaarsiin lahaa golihii deegaanka, loogu dhisi lahaa shacabkan ayaga maamul ay gacantooda ku soo samaysteen oo isku doorteen loo samayn lahaa. dadka reer koonfur galbeed meel walbay joogaanna ay loogu qaybgelin lahaa siyaasadda koonfur galbeed insha allah. dib u heshiisiinta arrimaha noogu muhiimsaneed ahayd. dib u heshiisiintii meel fiican baan ka gaarnay. dib u heshiisiin ma dhammaato. meel kastoo koonfur galbeed oon tagnay gogol baan dhignay nabadeed oo dib u heshiisiin loogu samaynayo dadka reer koonfur galbeed. haddii ay qabiil isku haysteen, haddii ay deegaan isku haysteen, haddii ay khilaafyo kale ay jireen, intaba waxaa ilaahay noo sahlay oon ku guulaysanay inaan magaalo kasta oon tagno iyo bulshada qaybaheeda kala duwan aan u dhigno gogol nabadeed aanan ku heshiisiin. saa og tihiin oo aad la socotaan markii doorashada ay dhacaysay qalaasihii inta ka dhacay waxaad la socotaan inay ku dhinteen dad 4 qof ah oo uu 1 qof shacab yahay, 3 qofna ay ahaayeen nin xildhibaan ah oo nabadda ka shaqaynayay oo jidka dhagxaantii ku jirtay qaadayay, iyo 2 nin oo dhallinyaro oo ciidamada ka tirsan. ilaahay ha u naxariisto. waxaan samaynay dadka ayaga ahaa, waxaan uga mahad celinayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kasta oo gacan ka qaadatay oo koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka. waxaan ku guulaysanay dadka ayaga ahaa 4 qof ahaa inaan eheladoodii iyo qaraabadoodii loo tacsiyeeyo, diyana la siiyo. mas-uuliyaddaasna ay ka qayb qaateen guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka inta joogay hormuud ka ahaayeen. dadka ayagaana ayagoo raalli ahoo dadkooda lagu qanciyay dhammaan. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garanya baaqandari dadka mucaaradka ka ee jiritaanka dowladda koonfur galbeed usugananka baaqi antiyo rojan barbagandadiyo ka baahiyahayaan baro bulshada. waxaan rabaa hal arrin oo muhiima inaan idiin sheego. saa la socotaan
muddo hal sano ah oo aan shaqaynaynay dad baa waxay caadaysteen ama reer koraad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeenii maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan baydhabaa xasuuq ka dhacay xasuuqa micnihiisaana la fahmin baydhabaa dad lagu dhameeyey koonfur galbeed baa saas la yeelay wax ay caadaysteen ay ahayd oo aan laga xishoonayn waxaa u badan dadka siyaasiyiinta ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay markaa weydiisidoo la sheekaysatid xisbiyada mucaaradka awaa markay shir isugu yimaadaan ay waxaas ka sheekaysanayaan waxa ay sheegayaana ugu badan waxaa waaye dowladdaan ola jeednaa idinka maa war annaga maad mahaysataay maxaa dowlad ola jeedaa dowlad maxay noo dhintaa anaga annaga wax dhiboon qabno male annagaa isku tashanay annagaa isxallinay annagaa heshiisa maxaa adiga shahaado zuur u noqonaysaa oo been nooga sheegaysaa oo waxaanan qabin u sheegaysaa oo habeenii maalin dadaan naga dhibanin nooga dilaysaa oo masiibo noogu siraadinaysaa soo nin damiir lama tiid soo nin siyaasadda rajo kaleyd soo ma tiid soo nin muslim ah soo ma tiid soo nin xishoonayo ma tiid waxaan soo ma ogid in laguu qoraayo oo taariikhda ay kuu gelayso soo ma ogid in aakhiro laguu qoraayo ilaahay kugula xisaabtamayo intaa ku dhintaana diinku yidhaah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garanyaan ka dambeyn ciidanka booliiska soomaaliyeed ka hambaliyay 7 sanad guuradii ku wareegatay runtii caawa marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ay sanad guuradoodii tahay waxaan leeyahay hambaliyo ciidanka meel kasta oo joogaanba booliiska soomaaliyeed faysal maxamed isaaq warbaahinta dowladda koonfur galbeed baydhabo